bilowday howlgallo ay ciidamada amnigu ay ka wadaan caasimadda. waxaan rabnaa shacabku in howlgalladaas ay hay'adaha amniga kala shaqeeyaan, u fududeeyaan, u sahlaan si aan amnigu waa waxaan wada leenahay aan u wada ceshano. waa dareemi karnaa in culaysyo ka imaan karaan howlgallo haddii la qaadayo oo guryihii la baarayo oo xaafadihii la tegayo. taasna waxaan rabnaa in culeysyadaas jiro dulqaad la muujiyo, samir. annaga maamulka haddaan nahayna sidii shacabka loogu adeegi lahaa waxaan diyaarinay basas iyo ambulance iyo wax alaale wixii lagu taageeri lahaa shacabka, gaar ahaan shacabkeena tabaalaysan oo goobaha uu ka socdo howlgallada ay saameyn ku yeelato wadooyinka xiranna inaan u diyaarinay gaadiid loogu talagalay oo haddii qof nugul ama waayeel ama caruur ama dad bukaana ay u baahan yihiin meel alaale meesha rabaan ha noqoto isbitaallo iyo howlaha muhiimka loo geeyo. sidoo kale baraha bulshada oon aragnay inay shacabka sii cabsi gelinayaan, siyaasiyiin isticmaalaysa arrimaha amniga siyaasadeynaya. arrimahaas oo dhan waa arrimo runtii aan shacabku u baahnayn. ujeeddada laga leeyahay waxaa waa in la argagixiyo shacabka, horumarka caasimaddan ay ku tallaabsanayso oo aan maalin walba ka shaqaynayno sidii aan waddooyinka u dhisi lahayn, sidii ganacsiga aan ugu sahli lahayn inay horumarkooda sameeyaan, sidii iskuulladii lacag la'aan looga dhigi lahaa, isbitaalladii. arrimahaas oo dhan horumarka caasimadda ka socoto ayay ka soo horjeedaan kooxuhu argagixisada. sidaas daraaddeed waxaan rabnaa in arrimahaas sidaas loo fahmo. intaas ka sokow waxaan rabaa inaan shacabka si gaara ugu sheego shirarka amniga aan ka qayb galayay muddada 10 sano aan joogayna. runtii madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre sida ay noogala naxayaan shacabka oo mar allaala markaan shirarka amniga annaga aan ka hadalno oo aan sheegno shacabka loo dhirmiyo, shacabka loo naxo. runtii ayagii madaxduna aad nooga horeyso ay mar walba si adag ula xisaabtamaan hay'adaha amniga marka ay noqoto shacabka iyo dhibaatada soo gaaraya. marka mar haddii aan u wada shaqaynayno warbaahintuna ay tahay dadka dulman inay cod u noqdaan, annagii madaxdiina heer gobol iyo heer qaranna aan runtii ka naxayno shacabka. waxaan rabnaa arrinta tan in saas loo fahmo, isla markaana aan dulqaad iyo la muujiyo culeysyadaas imaanayaan aan si wada jira uga hortagno. aad iyo aad u mahadsantihiin.